Dr. Abdul Qadir Khan. Dr. Abdul Qadir Khan waxa uu dhashay sanadku markuu ahaa 1936 waxaana uu ku dhashay dalka Hindiya. Waxa uu qoyskiisu ku soo barbaaray Pakistan sanadku markuu ahaa 1947 kadib markii uu wax ka soo bartay dugsiga sare Anthony Khan. Waxa uu ku biiray kulliyadii sare ee Karachi halkaas oo uu ku soo qaatay fiisigiska iyo xisaabaad. Macalinkiisii jaamacadda waxa uu ahaa macalinkii caanka ahaa ee Bashir Said Khan. Waxa uu ku guuleystay shahaadada maadada jirka ee jaamacadda Karachi sanadku markuu ahaa 1960. Dr. Abdul Qadir Khan waa aqoonyahan caan ku ah nashqadeynta nukliyeerka iyo injineer kiimiko waxaana loo arkaa inuu yahay asaasaha tiknoolajiyadda gaaska ee barnaamijka nukliyeerka ee dalka Pakistan. Barnaamijka hubka ee Pakistan waa in laga helo sharaf weyn oo qaran sida Abe Khan oo madax ka ahaa barnaamijka nukliyeerka ee Pakistan muddo haatan laga joogo 25 sanadood waxaana loo aqoonsan yahay halyeey qaran. Khan waxa uu aqbalay shaqada inuu noqdo kormeere miisaan iyo tallaabooyinka Karachi kadib qalinjebin. 35 years ago, Pakistani scientist Abdul Khan kadib waxa uu iska casilay shaqadii uu ka hayay Holland sanadku markuu ahaa 1970. Khan ayaa magaciisu caan ku noqday aqoonyahan tayo leh oo ka shaqeeya warshadaha nukliyeerka. Waxa uu si gaar ah u helay meelo badan oo la xiriiray oo ka tirsan xarunta Urinako. Waxa kale oo akhriyi kara dukumentiyada qarsoodiga ah ee ku saabsan tiknoolajiyadda gaas. Bishii Diseembar sanadku markuu ahaa 1974 waxa uu dib ugu laabtay Pakistan wuxuuna isku dayay inuu ku qanciyo ra'iisul wasaaraha Zulfikar Ali inuu qaato dhismaha hubka nukliyeerka. Sida laga soo xigtay warbaahinta, Mr. Khan waxa uu xiriir dhow la yeeshay madaxweyne General Mohammed iyo ciidamada militariga ee Pakistan. Waxa uu sidoo kale sii waday xiriirka dhow ee uu la yeeshay ciidamada cirka ee dalka Pakistan. Kadib doorkii barnaamijkiisa nukliyeerka, Khan ayaa dib u habeeyay hay'adda qaranka ee dalka Pakistan dhamaadkii sanadkii 1990 states from Libya to Iran. It's very dangerous if Iran gets the bomb. And let me just add, Khan waxa uu kaalin muhiim ah ka qaatay barnaamijkii banaanbaxa Pakistan gaar ahaan mashruucii ugu horeeyay ee Pakistan kaamarada ku meel gaarka ah iyo gawaadhida satellite-ka. Xayeysiiska Khan oo ah xayiraadda hubka nukliyeerka ee Pakistan iyo awoodaha kantaalada balaastiga ah ayaa sababay hoos u dhac ku yimid dowladda Pakistan. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Mareykanka ayaa bilaabay inuu ka fekero Pakistan inay siiso tiknoolajiyadda hubka nukliyeerka waqooyiga Korea si ay u hesho tiknoolajiyad ballaaran oo balaastiga oo uu bedelay Khan. So we're all going to pay the price. sidoo kale dib u cusboonaysiiyay baaritaano kadib markii 11 September 2001 weerarkii Mareykanka lagu eedeeyay in uu iibiyay tiknoolajiyadda nukliyeerka. Dr. Khan has made the world a much more dangerous place. He's made it much more likely that a terrorist group could one day get their hands on the nuclear bomb. si kastaba ha ahaatee Mr. Khan waa la cafiyay sanadkii 2004 laakiin waxa lagu xukumay xabsi guri. 22 bishii August 2006 xukuumadda Pakistan ayaa ku dhawaaqday in Khan lagu ogaaday in uu qabo cudurka kansarka oo kaga dhacay qanjirka. Waxa laga sii daayay xabsi guriga bishii February 2009 si looga daweeyo cudurkaasi kansarka ee ku dhacay. Khan sidoo kale waxa uu ahaa muhiimadda ugu weyn ee aasaasidda jaamacado badan oo injineero oo ku yaala Pakistan. Waxa uu sameeyay macadka shidaalka iyo macadka sayniska. Khan waxa uu sidoo kale ka shaqeeyay fulinta iyo agaasinka oo loo magacaabay Dr. Abdul Qadir Khan macadka tiknoolajiyadda iyo sayniska
iyo injineerada hiddaha ee jaamacadda Karachi ayaa loogu magac daray sharaftiisa Khan. Waxa uu kaalin muhiim ah ka qaatay soo saarista koorsooyin injineernimada ee jaamacadaha kala duwan ee dalka Pakistan. Inkastoo muuqaalkiisa caalamiga ah, Khan waxa uu si weyn u jecel yahay in uu ka mid yahay dalka Pakistan, waxaana loo arkaa inuu ka mid yahay saynis yahanada ugu saameynta badan